munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa ka qabsoontay magaalada Boorama gaar ahaan masaajidka weyn ee Geedgoble. Munaasabadaasi oo lagu weyneynay munaasabadaasi oo ka duwanayd munaasabadii aad hore uga barateen. Haddaba munaasabadan waxay ahayd munaasabad lagu weyneynayay kitaabka Qur'aanka Kariimka sidii loo daryeeli lahaa. ugu horeyn waxaa madashaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka Jamciyadda Nuurul Islaam Sheekh Cabdillaahi oo faahfaahiyay waxyaabaha ay jamciyaddu qabato isagoo dul istaagay markiiska loogu talagalay kitaabta Qur'aanka Kariimka in lagu daryeelo ujeedada loogu talagalay markiiska. waa nasiib daro inaan waxa weeyaan mana filaynin dad muslimiina oo islaama in kalaamku rabbul caalamiin kitaabkii dhanaa ee dastuurka ilaahay subhanahu wa ta'ala uga soo deganay maxamed alayhi salaatu wasalaam lagu soo dajiyay inuu dhexdeena sidaa ku noqdo lama kala furi karayo haddaad ursataan xitaa urtiisa ayaa waxa weeyaan markaa isbedeshay waa kutubta nooca noqotay marka walaalayaal wayna kala duwan tahay qofku markuu ka shaqeeyo guda galo intan iyo in ka daran baa waxa weeyaan markaa runtii oo hadda aynaan soo bandhigi karaynin oo waqtigu inagu kooban yahay ayaa waxa weeyaan markaa jirta marka ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabka quraanka inuu ilaalina dhamaanteen shakhsi walbana mas'uuliyadda ayaa saaran marka walaalayaal waxa weeyaan runtii waxayna soo gaadhay saad arkaysaan wasiirkii wasaaradda diinta waqafta xafidahullahu ta'ala subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan Sheekh Ali Abdullaahi Ahmed oo horeyna aanu tilmaamay inuu yahay waxa weeyaan laf dhabarta runtii ilaalinta ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa xaruntan hadda aynu tilmaamaynayna waxa weeyaan markaa waxa weeyaan runtii aw dadaal badan u galay sidii ay xaruntu u heli lahayd ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabka quraanka oo heli lahaa dhul isagu iska leeyahay wasiirkana waxaynu ugu ducaynaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadku in ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu daro waxa weeyaan kitaabka Allah iyo dadka muslimiintana inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku anfaco waxaynu arkaynaa waxa weeyaan markaa inta badan meel kale ayaa shirar fog loo maraa ayaa masaafo badan loo maraa shir laga qayb galayo laakiin wasiirku khayr Allah siiye masaafada fog wuxuu uga yimiday in ilaahay subhanahu wa ta'ala xarunta loo dhisay iyo dayactirka kitaabka quraanka kariimka inuu waxa weeyaan markaa dhagaxii dhigo ka qayb qaato dhismaheedii waxa weeyaan halkan insha Allah ta'ala uu inaga soo jeedin doono wacdi iyo muhaadaraad u qiimo badan sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay wasiirka diinta iyo waqafta ee Somaliland isagoo dul istaagay qiimaha kitaabka quraanka oo la weyneeyo qiimaha uu leeyahay iyo fadliga ay leedahay kalimaadkan laga oranayo fadliga quraanka kariimka ah iyo qiimeyntiisa iyo weyneyntiisa inaan dhowrno sida u dhowr lahayn sugu nimi iyagana waa mahadnaqay ugu horeeyo Sheekh Cabdillaahi Ali Jawhar Sheekh albaladkeena oo runtii taariikh iyo kalimad qiimo badan inooga yiri qiimaha kitaabku leeyahay sidoo ahaa sidii islaamku cizi ku heleen diintan ilaahay subhanahu wa ta'ala waa kitaabkan ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo soo dejiyay ee sharafta karaamada mudan ilaahay subhanahu wa ta'ala ونقول ما نشكتي إنه إلهي كتاب نوسد دجيي وهذا كتاب أنزلناه إليك النبي محمد با لو شيء إليك هو كتاب قرآن وهذا الكي إلهي ونقول دجيني النبي محمد ليدبروا آياتي سدتك قال كو أخريسا أي دكتان أي أفهمان آيات كيسة والمسكحة أي قشران أي كو عمل فلان وليتذكر أولو الألباب يقولون توبان ذاتك عقلي له إيمانك وصاحبك والكتاب كاس أين سقول نمي إنه كشة كينو قيمة أوليه يشرفت أولها أولنا أوليه لكن سين موجنا هاي وقدم أنت عن الشيخ عبد الله قاعد الله هين قبص الله هين حبل الله المتين أين كل دقيقة هين إلهي سبحانه وتعالى عز يشرف كرامه سيدو سمي صحابتي إنه سمي الله هينك ودوميسي إلهي سبحانه وتعالى قرآن الكريم أهل مكة وعرب أها وأفكوا كسود دقي وإعجاز أها أيها حضرني إلهي سبحانه وتعالى وحقني النبي محمد معجزة كلية أو النبي محمد الله به وينيد كتاب القرآن أيوها هدي أيسكمان إن سني إنسجو وإسان آيات أما القرآن مثل جيسا كان ما كان كريان بولاين إلهي وجودي إلهي وعري بالعرك أنا بقول كتاب كاسو كله ما كان كرتان كتاب عين كاسة قيمها شرفت له أي إلهي سبحانه وتعالى ينوسد شيء أو ينسيه وإلهي حنون النور يروح نوغدي والروح بعيسى كم تهاي وأنزلنا إليك روحا من أمرنا إلهي سبحانه وتعالى الروح كتل ماما يا نور
nuur buu ku tilmaamaya wuxuu ku tilmaamaya ilaahay furqaan oo kala saaraya xaq iyo baatilka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay kitaabka qayimka ee qiimaha sharafta leh inuu yahay mid ku hanuunaya dadka siraad almustaqiim jidkii toosnaa ilaahay uu ku dhaartaa kitaabka weynaanta uu weyn yahay darteed ayuu ilaahay ku dhaartaa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay mid ciddii weynaysana ilaahay uu weynaynayo sharfu yeelayo karaamaynayo ciddii ma laha kitaabku in la hoos mariyo amba la sharaf dilo amba maatay la qiimo tiro laakiin ciddii qiimo tirta isku dayda ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala iyagu qiimo tiraya kitaabka ilaahay qofka u hilin waayo nebi maxamedna u hilin kari maayo nebi maxamedna u hilin kari maayo in kuntum tuxibuuna allah fattabicuuni yaxbubkum allah ورسولنا صلى الله عليه وسلم إلهي القرآن كبيري واحد كتير هذا قوم كذا هذا إلهي تعيشين أنا جاي صور رعى إلهي ما ينجعلان دونه بكرة عتان كنبي محمد يكون يشريسه إذا أنت كتابك أيه يدورستيس وتلودي إن روك قال الله نوفه مصحف كريم كا روك قال هذا عدو إذا لا تجيب بال ليه لديدي سان قعدت تقولين مكان الدبن أو كتابك القرآن كا أم lagu joogsanin ama maxaan ku raadayay la qoorsanin oo si kala wax nijaasa loo marinin saasa mamnuuc ahay imka laakiin waa iskala guuriyay qof walba uu siisteen ila kitaabkii loo baahnayaan la yamusu al-mutahharun dadka taabanaya inay kuwa daahirsan yihiin kuwa daahiriin qalbiga iyo shirkiga ka daahira waysa qabo wanaagsan xadadkii ka daahira intaba waa leeyahay taasi sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland isagoo oo dul istaagay kitaabka Qur'aanka in la ilaaliyo qiimaha uu leeyahay ciziga kitaabka Qur'aanka ummadii qaadatay ee hortaba casru tanziilku uu ku horeeyay ciziga iyo sharafka ay ku gaareen kuwii ka hor yimiday duleynta uu ku duleeyay in la ogaado kulka la doonayo aayadan nafteeda inoo cadaynaysa waa ilaahay idin soo diray kuwii aan waxna qoraynin waxna aan akhriyaynin umamka dhexdooda ah dad liiti ka ahaa dawladii waqtigaa taagnaa ama ummadihii taagnaa ee reer Faris iyo reer Room ku ahaa kuwa aan qiimo lahayn oo ihtimaam lahayn ilaahay ka soo bixiya rasuul kaasoo ilaahay aayadihiisa gaarsiiyay oo sheego oo ku dul akhriya kaasoo dahira عقيدتي فوش حميد أي كل رقمايين أخلاقيات كي حما أنت هذا محي هيدي كظاهرة ولا يهقر كل رجل أما يسكسب أنت يحاشد كل رجل ما يسوى وضعون لكن مرنا بقى هؤلاء قياسي هذا وكفر وكفر يا هذا يوقفوا يقوم سمي ليه لكن واحد يسكوا فخسية أنا عارف حنتهي إن كتاب القرآن كان أفكر عن رفض هذا عضمر الصعيب كتاب كي صراحة عروض لو ما ديري جنا ولا لقى علم جري كل كنا كويلا تونجس شنية تون جسم لها كل كوجارو أيها لورنج للأوديبا كل كاسر كان أنتو صوب بحورن جري قال كان ولا قال جبي يدر البقشين قال إن كيو الله حكوا قرنا ينتو سرعة لا ولا ما عرك يسار ما عرك يسار سرعة سو قال إن كيو جبيه فان قال إن جبيه أنا خلاص قال إن كان بتواد محكومة قرنا هاي أنا محكومة قرنا يا حتى كده كتابهم ما كير سنة برجع يكون فتاة سلم ويان قلبيت كيف نحفظ وكل يعني أرضك وحلو بري جيران شنية طبعاً كوسا كوكا وبرطة ومبقى كتور جيرو كانوا جميل جيران واي وحنا قدنا له كتاب الله حق أنكم رجعنا إنه مال بالغو ما يرى أو كلي الله مال يرى قد يربى القضاء من العامد وقت هذا لقى قضاء قد كاس الله ما يرى ما جيس هذا دين شيء محل لورنجري دين باللورنجري ماشى دين كخصوصا ما يبال لورنجري لفظ الدين معناه كتاب القرآن هو الدين كان يسمى meesha yar loo xanta lagu maydho meel kale mamnuuc baa in lagu maydha diin baa loo oran jiray diinka ku maydh baa loo oran jiray waa la ixtiraam jiray waa la dhowri jiray maanta wuxuu sheekhan barakallahu fi qoladan jamciyada madaxdeeda wuxuu ka hadlayay waa dariyay horta amal sacab iyo amal waajib oo fiican oo in saaran weeyaan laakiin waa amal sida loo fuliyay ay adag tahay waa arintii carabtu ay oranaysay al-mashuratu la qiimata laha idha kana tanfiiduha ghayra mumkin bal waxad qiyaastaa gobolkeena awdal qiyaas inteeba quraan gacantiisa oo soo galaya bal dadka waaweyn iska badhaaf waxa la wixii madaariska ahaa iskuuladii malcaamadii tarbiyadii waxa aqal walba intaas yaqbaxays markaas
waxaan kutubta annagu kitaab baan akhrisanayno sidaasaan ixtifaad u samaynayno waad yaabaysaa iska dhaaf aabbahay iska dhaaf raxmatullaahi tacaala calayh kutubtii uu ka akhristay baan gacanta ku haya taan anoo akhristay iska daa tii isagu uu ka akhriyey maaha tii uu ka akhristay kolkuu dhiganayay tii baan gacanta ku hayna culimmada sidaasay caadadoodu ahaan jirtay kitaabka qur-aankana maxaad u malaynaysaa maanta xaashiya intoo la soo wada daabacayba meel baa mushtari intoo la geynayaa laleeyahay atarbiya soo roga aqalkii baa laga buuxinayaa intaasoo kitaab baa laga buuxinayaa kii sayniskii kii sawirka lahaa kii xisaabtii waa la isku dhex daraya maxay ka warqabtaa islaanta xaafadda joogta maxay ka warqabtaa inanta reejaal la yiraahdo maxay taa inanta jaariyadu maxay ka warqabtaa taas iyo xilku saaran yahay barnaamij laga dejiyo maaha gobolkeena oo kaliya ma wadankeena oo dhan bay saaran tahay in loo guntada qadiyada go'aas ama waliba gubida labada ka dhibiyar kuwii aan kulka hadda baabacay tawdaran hadaba waxa weeyi kitaabadan masaajidada la keenayo bal wuxuun bay mudduun bay joogayaan oo kitaab isagoo sidiisu imka halka laga saaraya waa yaryahay halkay musiibadu ka taagan tahay waxa weeyi waa iskuuladii waa madaariskii waa malcaamadihii kitaabkii quraanka baa loo qaybinaya markaas madaariskii la leeyahay tarbiya islaamiga rugaya suuradaha lagu qoraya wixii oo suuqaya ayaad arkaysa sida arinta looga fursan kara waa dambi inagu socdo weeyaan Soomaaliya wadanka oo dhan ku socdo kulli maanta ma sha Allah waxay nala joogo wasiirka awqaafta iyo diinta ayay nala jooga qadiyada waxaan ka codsanaynaa waa qadiyad ballaaran oo ka ballaaran heer degmo ka ballaaran in qaranka la hor dhigo bal sidii laga yeeli lahaa manahijka tacliimiga quraankii uu ku jiro la daabacayo kolka la daabaco ardayga dambe kitaabkii masiiya mid waliba halkaas ku tuura hadana ku kalun baa la daabici hadana ku kalun baa la daabici siyaasad guud oo wadanku uu ka yeesho weey wana mahadsan yihiin nimada walaalaheeni hadii ku himoodeen inay yacni sameeyaan xarun laguna daayactiro laguna ilaaliyo oo lagu dhowro waa maxamed qalle cismaan sayl camiiriya magaalada Boorama